بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بجميع الطلاب في معهد جراند أونلاين أكاديمي لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. نأخذ فصولا جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، وشاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو. عنوان الدرس الذي نأخذه اليوم يتحدث عن المقابلة الشخصية في العمل. halkan waa macadkii Grand Online Academy lagu barashada luqadda carabiga qaab online ah. casharkan maanta qaadana wuxuu ka warramayaa المقابلة الشخصية في العمل. marka CV adkiisa shaqo ee lagu yeelanayo interview lagu wareysanayo qaabkee ayaa lagu wareysanayaa. marka su'aalo jawaab laga sameeyay luqadda carabiga hadii bal shaqo carabiga aad xareysatay qaabkee su'aaliyeed uga jawaab leed isku afkarin lahaydeen tusaale yar oo guud baa laga siinaya insha Allah ardayga qaaliga. مركا في البداية نقرأ هذا الدرس باللغة العربية. عنوان الدرس المقابلة الشخصية في العمل. أولا مرحبا، أنا مدير الشركة، اسمي مايك. مرحبا، اسمي خالد. هل يمكنك أن تخبرني قليلا عن نفسك؟ هل يمكنك أن تخبرني قليلا عن نفسك؟ نعم، اسمي خالد، عمري 24 سنة، تخرجت من جامعة أم القرى كلية الحاسوب. يقدم شرح مبسط أو شرح بسيط عن نفسي. كلية الحاسوب، وأبحث عن وظيفتي الأولى. هذه أول وظيفة أقدم فيها السيرة الذاتية حقي. ما هي نقاط ضعفك؟ يسأله أسئلة. ما هي نقاط ضعفك؟ ما هي نقاط قوتك؟ أولاً عفواً قال له ما هي نقاط قوتك؟ المسؤولية هي أعظم نقطة قوتي. أنا شخص مسؤول، إذا أتمنى أي شخص أقدم واجباتي بأحسن وجه. المسؤولية هي أعظم نقطة قوتي. ما هي نقاط ضعفك؟ أسألك أيضاً ما هي نقاط ضعفك؟ أعتقد أنها ليست لدي خبرة في هذا العمل. قال نقطة ضعفي أعتقد أنها ليست لدي خبرة كافية في مجال هذا العمل داخل الشركة. هذه نقطة ضعف منطقية. ما شاء الله أيوانك عشركة أنه قادنا وكورمية المقابلة الشخصية في العمل. marka lagu yeero shaqo xareysatay waxaad geysay waraaqahaagii CV-ga shahaadooyinka geysay waa lagu yeeray marka waa lagu wareysanayaa wax lagu la yeeshay kulan aba interview. marka qaabkee ayay su'aalo lagu weydiin la casharka nooga warramay. marka marhaban soo dhawow yiri anigu waxaan ahay mudiir shirka, maamuli shirkadda, maamuli guud ee shirkadda ahay. ismi magacayga waxa la yiraahdaa Mike baa la yiraahdaa ku yiri. marka wuxuu yiraahday marhaban, ninkii la wareysanayay marhaban adna aad u soo dhawow, ismi magacay Khalid baan la yiraahdaa. su'aashii koodii la weydiiyay marka qofkii la wareysanayay wuxuu yiri hal yumkinuka suurtagal ma tahay an tukhbirani inad ii sheegtid qaliilan waxoogaa can nafsiga, naftaada warbixin kooban ma iga siin kartaa buu yiri. nacam, haa buu yiri. ismi Khalid, magacay Khalid baa la yiraahdaa. cumri da'diisu waxa weeyaan 24 sano, 40 jir baan ahay buu yiri. تخرجت وحنا كصباحي من جامعة أم القرى. جامعة أم القرى أنا كصباحي كلية فاكولتي الحاسوب كمبيوتر ساينس. عم بأيتي كلية أيتي أنا كصباحي بكير. وأبحث إنك واحد رادينية عن وظيفتي شقتي الأولى كوبات شقتي كونه رادينية. ما هي ومحي بكيري نقاط قوتك؟ meelaha aad u xoog badan tahay, waxyaalaha aad u xoog badan tahay, awood badan u leedahay, wax ma iga sheegi kartaa buu yiri. wuxuu ku yiri al-mas'uuliyya, in aanu mas'uuliyad ka saaro xilka, wax kastoo la yidhi xilka aan iska saaro. hiya waxa weeyaan acdam meesha ugu awoodda badan nuqtatu quwwati. wax kastoo la yidhi mas'uuliyad baa iska saaraa ma dhayo sida buu yiri. xaggaas intaas aan xoog badan yiri. wuxuu weydiiyay ma hiya niqaatu dacfik? ma hiya waa maxay niqaatu dacfik? goobaha dacfiga u leedahay waxyaalaha ceebtaada mid ma iga sheegi kartaa? waxyaalaha aad ku liidatid mid ma iga sheegi kartaa? waxyaalaha ku xoog badan oo sheegay laba shay oo ku liidatidna wax iga sheegi buu yiri. أعتقد waxaan maraynayaa buu yiri annaha ina tahay wax meelaha ku liita laysat ladayya malihi khibrad fi al-amal. shaqada nimkaad dhibi doontid
khibrad badan uma lihid taasaan ku yeerliida karaa u dhici karta laakiin khibrad badan uma lihid waa wax macquula. نقرأ هذا الدرس باللغة العربية في المرة الأخيرة بقراءة سهلة وسريعة. مقابلة الشخصية في العمل: مرحبا أنا مدير الشركة اسمي مايك. مرحبا اسمي خالد. هل يمكنك أن تخبرني قليلا عن نفسك؟ نعم اسمي خالد عمري 24 سنة تخرجت من جامعة أم القرى كلية الحاسوب وأبحث عن وظيفتي الأولى. ما هي نقاط ضعفك؟ ما هي نقاط قوتك؟ المسؤولية هي أعظم نقطة قوة لي. ما هي نقاط ضعفك؟ أعتقد أنها ليست لدي خبرة كافية في العمل. ما شاء الله جميع الطلاب وجميع المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذا الدرس. أترككم برعاية الله وحفظه. نأخذ فصول جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، وتواصلوا معنا بالأرقام المكتوبة أسفل الشاشة، وشاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.